السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دكتور يوسف كسر هذا البرنامج عافيماتك أنا كسر قد بينه برتنا كلنا هاي يوتيوب فيديو أو كوا أقول جود أنه أصابن دقنو إن برشلونة الصومالية إن ما أنت فيديو كمان حكى هذا إن روجو حلي هاي كوشين أما بركين بولي هاي أما منيسك الصلاة قانو barkinta ruugu waxay u dhaxaysaa ama kushinkaasi wuxuu u dhaxeeyaa lafta sare iyo lafta hoose. Haddaba maxaad ku ogaanaysaa haddii uu dhaawac ka soo gaadho, haddii uu dilaac ama jeexitaan ama go'itaan uu ka soo gaadho, si kullaba qof sida uu yaqaano waxyaabaha aad ku ogaanayso ama calaamadaha aad ku arkayso aad oranayso oo waxa weeye problem ba iga haysta ama dhibaato iga haysta qaybta kushinka ruuga. waxyaabaha had iyo jeer aad isku arkayso waxa kamida xanuun ayaa kamida tusaale ahaan aan idin tuso halkan waxaan ku hayaa model ayaan ku hayaa had iyo jeer barkinta ruugu waa laba qaybood waa qayb dibadda ah oo waa C shape waa taa had iyo jeer calaamada C oo kale leh qaybta dibadda iyo qaybta gudaha labada lafoodna way u dhaxaysaa waxayna caawisaa in uu ruugu si fiican u shaqeeyo oo aanay labadii lafood aanay wax isyeeleen aanay isxoqin aanay isdaawicin ayuu u shaqeeyaa taasina waa had iyo jeer waa kushinkaas ama meniscuska ama waxa loo yaqaano barkinta ruugu waa waxyaabaha ugu badan ee had iyo jeer soo gaaro dhaawaca ayada iyo had iyo jeer xijiyaha hore ee loo yaqaano ACL loo yaqaano. Haddaba maxaad isku ogaanaysaa haddii ay wax dhaawac ka soo gaaro barkinta ama kushinka waxyaabaha aad isku ogaanayso waxaa kamid ah number 1 in aad qofku xanuun uu ka dareemo in uu ka dareemo xanuun qaybta ruuga gudihiisa oo kale in aad dareento oo kale marka aad ruuga isku laabayso ama aad kala bixinayso in ay meniscuskii had iyo jeer isku laamato oo aad dareemayso laabitaan ama iskeletaan oo kale meniscusku haddii uu laabitaan uu galo ama uu isku laamo waxaad dareemaysaa marka aad kala bixinayso ama aad ku soo laabayso ruuga ayaad dareemaysaa ama saqadh ayaad ka dareemaysaa filip waxa ayaad ka dareemaysaa ruuga dhexdiisa had iyo jeer oo kale xanuun waxaad ka dareemaysaa barar oo kale waliba qaybaha dheega haddii qaybta dabadu ay ku goodo dhaawac ka soo gaadho meniscuska ama kushinka ama qaybta gudaha haduu ka soo gaadho had iyo jeer qaybta uu ka soo gaadho ayaad waxaad ka dareemaysaa kuraanta qaybteeda dabadeed ama qaybteeda gudaheed ayaad barar ka dareemaysaa waa waxyaabaha aad ku ogaanayso in meniscuskaaga ama kushinka uu wax dhaawac ka soo gaadhay waxyaabaha kale aad ka soo gaarayso marka aad isku laabayso ama aad kala bixinayso ayaa waxaad ka dareemaysaa xanuun ayaad ka dareemaysaa had iyo jeerna waxa ay wax soo gaaraan meniscuska ama kushinkan marka dhaawac ama qofku uu balooni ciyaarayo kale waxyaabaha sportska ee kala duwan uu ciyaarayo waa waxyaabaha ugu badan ee uu ka soo gaarayo dhaawaca ay waxaan noqonayso had iyo jeer dadka dhowr iyo 40 jirka ilaa 50 gaaro oo kale ayada waxa sameysma in uu meniscuskii uu ku dhaco waxa loo yaqaano gabow ama degenerative oo kale ama xoqitaan iyo uu ku dhaco kulay kalmad sax ah oo lagu sharaxo ma garanayo laakiin waxa weeye gabow ku dhacaya meniscuskii wayna yaraanaysaa way isku soo waxaysmaysaa biyihii baa ka baxaya marka waxa waxaysmay in labadii lafood ay isku soo dhawaadaan aakhirka in ay meniscusku ama kushinku meesha uu ka baxo ay noqoto in uu labadii lafood isxoqaan waana waxyaabaha ugu badan ee had iyo jeer dadku ka cawdaan carjoodii ku dahaaneed lafta ayaduna dhamaato kadibna uu qofku u baahdo in loo sameeyo waxa loo yaqaano kala bedel loo sameeyo jilibka ama replacement loo sameeyo أنا صار نقول عدبا كوشينكان إنتنا مرجوني أي فيديو جوني أي كذا هاللينا هو كله بدلك أما نهرنا ونقصه هاللي فيديو كله وداون دوتا منسكسكا هدي وداو كاسو جارو أو كويتان أم تشيهتان وكاسو جارو وحيابها ومهم إن الإسكا إغنور كريسو أسكا دافتو عادي وحي خطر أما حالس أوتاي مستقبل كاغا عافماتك روغاغا
iyo inuu had iyo jeer xanuunada arthrosoo kale uu kugu soo gaadho ama xanuun joogta uu kugu soo oo aad ka cabato. marka aad iyo aad waxa muhiim u ah in aad samayso had iyo jeer waxa la sameeyaa keyhole surgery ama scope ayaa lagu iyadoo aan la jeexin ilaa 2 centimeter in baa ruuga la dalooliyaa, dhinacyada kuraanta dheegeeda ayaa laga dalooliyaa, ruugii oo aan la furin ayaa haddii uu dilaac ama jeexitaan ku yimi meniscaska lagu soo jaraa, lagu soo tolo ayaan leeyahay oo talitaan lagu sameeyaa. kadibna ayada marka labadii af ee kala dilaacay la iskugu keeno ee lagu tolo ayada ayaa bogsanaysa. qofkuna marka lagu sameeyo meniscaska ilaa 4 ama 6 week kadib way bogsanaysaa oo way isku si caadi ah ayay bogsanaysaa. marmarka qaarkood waxa dhaca in hadii jeer dadka ay ku dhacdo wax la dhaho inuu dhaawac aad u badan uu soo haysmo soo gaaro meniscaska, mar dhowr qalliin oo ka amaliyad oo kala duwan loo sameeyo oo ay noqoto in lagu guuleysan waayo ama ay dhacdo in ay dib u bogsan weydo meniscaska ama cushinka ruuga. waxay option kale ayaa jira oo iyadana loo sameeyo kale waad maqashay in loo sameeyo transparency oo meniscus transparency loo sameeyo. qof kale meniscuskiisa ama cushinkiisa ayaa la soo gooyaa, taada ayaa lagu bedelayaa. waxayna qaadataa 4 ilaa 6 bilood inay meniscuska had iyo jeer kala bedel ahaan oo kale. waxaan maqashay kaliya qof loo saaray ama wadno laga bedelay, ayadana waxa la sameeyaa kala bedel ayaa loo sameeyaa oo qof kale meniscuskiisa ayaa lagu beeraa ku beeritaan macni oo kale oo transparent had iyo jeer oo kale oo in la soo qaado taadii hore wixii hadhaaga laga saaro, laga nadiifiyo, kadib la geliyo, lagu tolo, lagu repair gareeyo, kadib qofku uu 4 ilaa 6 bilood kadib uu ku bogsado. qofkuna 6 ilaa 8 bilood wuxuu ku soo noqon karaa ama uu isticmaali karaa waxyaabaha sportska bloodiga oo kale marka loo sameeyo had iyo jeer loo sameeyo meniscus transparency. dadka qaarkood ayaa aad iyo aad uga faa'iida ayuu shaqeysaa. marka video waxaan ku soo koobayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku ogaanayso ama aad isku arkayso haddii uu ku soo gaaro meniscaskaaga ay ku timaado dhaawac ka soo gaaro xanuun ama barar qaybta ay tahay ama gudaha ama dibadda ruugaaga oo aad ka dareemayso iskelitaan wax iskelaya waayo meniscaskii ayaa isku laamaysa marka qayb soo go'do soo dilaacdo oo isku laamaysa, taas oo kaa xanimaysa shaqadii ruuga inaad ruuga kala bixiso ama inaad ruugii isku soo laabto si caadiga ah. marka hana iska ignore gareen ama ha iska dhaafin haddii ay ama dhakhtar kugu dhaho waxaad u baahan tahay in dib repair lagu sameeyo ama dib u tolid lagu sameeyo meniscaskaaga. intan ayaan kusoo koobaya videogan kooban waa inoo iyo kuletan dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.